kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaalida. Shirkii u soconaya mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya oo lagu soo gabagabeeyay Hotel Jazeera. Qodobo kala duwan iyo warmurtiyeed ay ka soo saareen eedeymo kala duwan ay u jeedeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maxay tahay qodobada sida gaarka u quseeya madaxweyne Xasan Sheekh mase dhaba in ay dalbadeen in la badbaadiyo dalka, maxayse tahay tallaabada ay qaadayaan, maxayse ku baaqeen kooxda Al-Shabaab oo caawa culays ka saartay magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle. Maxayse tahay cabsida ugu weyn ee caawa ka jirta magaaladaasi? Waxaynu idinla wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee ka taagan magaalada Jowhar. Haddii aynu ku bilowno, waxaa soo baxay war-saxaafadeedkii aadka loo sugayay ee mucaaradka kaasi oo ku kooban 11 qodob oo si wadajir ah u soo saareen 13 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya. Madasha samata bixinta Soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin madaxdii hore ee dalka hore xilalka ugu soo qabatay sida xilka madaxweynaha, guddoonka baarlamaanka, madaxa xukuumadda, wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa isugu yimid shir muddo 4 maalin ah 27 ilaa 31 May 2025 ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Madashan oo wada tashi la yeelatay qeybaha kala duwan ee bulshada sida odayaasha dhaqanka, culimada, dhalinyarada, haweenka, warbaahinta iyo madasha bulshada rayidka ayaana sidoo kale looga hadlay dagaalka lagula jiro kooxaha argagixisada ee Al-Shabaab iyo sidoo kale Daacish, midnimada iyo wadajirka dalka, khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay dastuurka dalka markaasi ee la bedelay iyo habacsanaanta xilligan ka jirta. Ugu horreyn, madashu waxay sidoo kale waalidiinta iyo shacabka Soomaaliyeed ugu tacsiyeynaysaa dhalinyaradii Soomaaliyeed ee ku nafwaayay biyaha badda ee u dhexeeya Algeria iyo Spain, iyagoo ka qaxaya rajo la'aan iyo quus ay ka qabaan mustaqbalka dalkooda. Madashu waxay soo saartay qodobada soo socda. Madashu waxay hoosta ka xariiqaysaa in meel looga soo wada jeeso dagaalka kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab iyo Daacish, si buuxdana loogu garab istaago dowladda si loo badbaadiyo jiritaanka qarannimo iyo dowladnimada dalkeena, iyadoo dhanka kale lagula xisaabtamayo hoggaanka dowladda. Maamulka istiraatiijiyad xumida dagaalka, dayacayo daryeel la'aanta geesiyada naftooda u horaya dalka iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo hogaamiyaasha deegaanka ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Madashu waxay sidoo kale xoojinaysaa midnimada iyo wadajirka dalka, waxaana sidoo kale cambaareynaysaa faquuqa siyaasadeed ee kala irdheynta iyo tale isku yeelidda ee markaasi ka imaanaysa maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Sharciyada maamul goboleedyada, sharcigu waxa uu sidoo kale walaac xoog leh uu ka muujinayaa muddo dhaafka xileedka ee dowlad goboleedyada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed, taasoo khilaafsan dastuurka dalka iyo midnimada dowlad goboleedyada. Muddo kordhinta sharci darrada ah ee ku beerista xisbiga madaxweynaha iyo burburinta madasha wada-tashi qaranka waxay tilmaam cad ay ka bixinaysaa damac keligii talis ee madaxweyne Xasan Sheekh iyo qorshihiisa muddo kordhinta iyo xaqiijinta doorashada keligii in uu ku guuleysto doonayo. Ku tagrifalka awoodda eexda iyo sidoo kale musuqmaasuqa, madashu waxay si adag u cambaareynaysaa ku tagrifalka awoodda dowladda, musuqmaasuqa iyo eexda baahday, xaraashka dhulka dowladda ee danta guud, heshiisyada qarsoodiga ah ee ku aadan kheyraadka dabiiciga ah ee batroolka, macdanta iyo kalluunka si markaasi aanan loo simin. Tallaabadani waxaa ka dhalan karto kala fogaan iyo sidoo kale kala qaybinta bulshada Soomaaliyeed. Qiimo jab ku dhacay beeca dhulka, kaasi oo markaasi khasaare baaxad leh u geystay dad badan oo dhulka maalgashaday. Dhaqdhaqaaqii ganacsi oo istaagay, taasoo keentay in hanti badan oo balaayiin dollar ah dalka lagala baxo, dibaddiisana markaasi lagu maalgashado. Rajabeelka dhalinyarada kaga dhacay dowladnimada, kuna qasbay in ay dalka ka cararaan oo hijro iyo sidoo kale qax ay markaasi galaan. Xorriyadda siyaasadda iyo saxaafadda, madashu waxay cambaareynaysaa xadgudubyada joogtada ah ee lagula kaco warbaahinta madaxa bannaan ee dalka iyo jujuubka dadweynaha lagu qasbayo isdiiwaangelinta iyo ka qayb qaadashada waxa lagu sheegay doorasho, taasi oo aysan raalli ka ahayn. Xayiraadda saxaafadda, siyaasiyiinta iyo sidoo kale xadgudubyada loo geystay saxafiyiinta, warbaahinta madaxa bannaan ee markaasi lagu afjigo tabin dareen ay markaasi shacabku ay ka qabaan maamulka madaxweyne Xasan Sheekh. Adkaysi la'aanta iyo sidoo kale rajabeelka midnimada iyo wadajirka dalka, ilaalinta heshiisyadii saldhigga u ahaa aasaaska Jamhuuriyadda saddexaad ee Soomaaliya.
madashu waxay sidoo kale ay ugu baaqaysaa in madaxweynuhu uu ka waantoobo tallaabooyinkii hore uu qaaday. Waxay arrintani caddeynaysaa in si buuxda ay u garab taagan tahay ciidanka qalabka sida ciidanka difaaca maamul goboleedka Puntland iyo halgamayaasha deegaanka ee maamulka Hirshabelle, gaar ahaan macawisleyda gobolka Hiiraan ee baxsanaya kooxaha xagjirka iyo hargagixisada. Waxaanay sidoo kale ku baaqayaan in heel iyo hoob lala garab istaago geesiyaasha naftooda hurayo. Madashu waxay hoos ka xariiqaysaa in dastuurka la bedelay uu halis ku yahay geedi socodka dowlad dhiska midnimada iyo wadajirka. Waxay ugu digaysaa madaxweynaha xuquuq siyaasadeed oo maamulkiisa uu ku hayo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland iyo ficilada xalka sii fogeynaya furinta siyaasadeed looga furayo gobolka Gado. Waxayna ku baaqaysaa in la qaado cunaqabataynta saaran deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Jubbaland. Waxay cambaareynaysaa xadgudubka iyo sidoo kale beegsiga warbaahinta madaxa bannaan ee ka imaanaysa hay'adaha ammaanka dowladda federaalka. Waxaanay xoojinaysaa ilaalinta xorriyadda saxaafadda iyo sidoo kale midnimada warbaahinta madaxa bannaan iyo kalsoonida shacabka. Marnaba uma noqonayso xorriyad iyo sidoo kale in warbaahinta madaxa bannaan la caburiyo. Waxay ugu yeeraysaa madaxweynuhu inuu degdeg u joojiyo iibinta dhulka danta guud inta ka harsan shacabka Soomaaliyeedna ay markaas u soo bandhigo dhammaan heshiisyadii uu ku bixiyay kheyraadka dabiiciga ee dalka iyo hanaanka maareynta dhaqaalaha ee ka soo xarooday heshiisyadan. Waxay ugu digaysaa ganacsatada Soomaaliyeed in aysan markaasi ku kadsoomin iibsashada dhulka danta guud. Soo jeedinta in saamileyda siyaasadeed ee dowladda federaalka, madaxda dowlad goboleedyada iyo saameyntiisa siyaasiyiinta mucaaradka ee kulanka ku leh in si degdeg ah la isugu yimaado in dalka laga samata bixiyo marxaladda uu haatan ku jiro, taasoo ah mid aanan markaasi lagu sii fiirsan karin. Kasoo horjeedida in dib markaasi loogu laabto doorashadii dadbaneed ee sanadkii 2022 waxay taageersan tahay hannaan doorasho oo daahfuran oo heshiis lagu yahay. Waxaana lagu gogol xaarayaa doorasho qof iyo cod ah kuna saleysan dastuurkii dalka ee Soomaaliyeed ay ku heshiiyeen ee 2022 iyo xeerarka xisbiyada iyo guddiyada doorashada uu ansixiyay iyo sidoo kale baarlamaankii 9aad ee sharcigii doorashada, taasoo ah in uu meel mariyo baarlamaankii 10aad. Waxay sidoo kale ku baaqaysaa in dib loo bilaabo wadahadaladii markaasi u dhaxeeyay Somaliland iyo Soomaaliya si looga hortago ajandayaasha guracan ee shisheeyuhu uu markaasi ku doonayo inuu ku kala qaybiyo ummadda Soomaaliyeed. Waxay sidoo kale mar kale ugu baaqayaan in tallaabooyinka dowladdu ay qaadayso ay noqdaan kuwa markaasi la joojiyo. Ugu dambeyntiina haddii aynu eegno kooxda Al-Shabaab ayaa waxay culeyska soo saartay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. Waxaana sidoo kale caawa cabsi xoogan laga dareemayaa magaalada Jowhar iyadoo heegan kala duwan la geliyay ciidamada militariga Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa booliiska Hirshabelle. Ciidamadan ayaana sidoo kale waxaa loo diyaariyay inay si aad ah u sugaan wadooyinka soo gala iyo kuwa ka baxa magaalada Jowhar, iyadoona sidoo kale laga cabsi qabo in weerar qorsheysan ay xubno ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku qaadaan magaalada Jowhar. Tallaabadan ayaana sidoo kale waxay ku soo aadaysaa xilli kooxda ay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ee maalmihii ugu dambeeyay ay ka waday magaaladaasi.